كبدي كفتن كي كلولا يا كويسلا شيركي قلبتنا وبسلام محمد شيخه maalin dhaweeydan qoladan nabad iyo nolol aan boodkeeda istaagay waxa ayayana wasay u soo yaaco gandahay qabsaday sida ayixii maartay horta qoladan maartay aad ka u taageera nabad iyo nolol magacaasi waa khamro qofkii ka bada waagu miyirsada ma dhawa laakiin waxaad ogaan doontaan in aanay meesha dawlad yoolin markii dawlad fiican aan idin dhisno heshaan ayaad ogaan doontaan bari waxa la yidin oday ahaa oo ilkala yaa wuxuu qabay islaan waa soo islaha marka dadka way kugu roontahay oo hilibka inta kariso way calaliso ayay maadaama odaygu aanu ilka lahayn adiyadoo inta budaysa dhacaan ka mudsatay siin jirtay aad buu jeclaa u amaani jiray u faanin jiray dadna maalinta dambeeyay Allah u timada way geeriyootay baa leeyahay markaas aad u walbahaaro xataa uu gaaray yiraahdaha leeyla duugo qabri kale anigan halay qodo kala gadaasheed noolaan maay waasa hadii idinku tiin nabad iyo nolol hadii la waayeen noolaan karin markii gabadhii dhimatay kadibna gabadh kale loo aroosayo gabadha kale intay hilibka qalajiso oo ay tib iyo mooyo ama kaliya mooyo u qaadato qala ay tunto oo sida mushaalido kale ka dhigta ama soorto oo kale ay markuu bislaado ay inta qaado keento u cuni jiray kadib uu ogaaday inuu meesha ku dulmana baal dambe wuxuu yiri qori daba inta soo qaatay naagta qabrigeeda hal iigeeyo waan soo gubi doonaa waan soo gubayaa naagtu sida ii xaasidi jirtay iyo dhibkii uu haystay baan haddana ogaaday orda nabad iyo nolol ilaahay xukuumad shaqaysa hayno mid iska fadhida tahay marka xukuumad shaqaysa heshaan ayaad ogaan doontaan hadda tani waa iska nin ul waayo qori qaad bay Soomaalidu tiraahdayo marka xoolaha ka xaynaysa hadaad ul fiican oo ku kaxayso weydo degeedka kugu xigo ma iska jabsan marka sidii un baa ina qabsatay sida bay inoo haysataa dalka madaxweynuhu sidoo inoo sheegay kor uu ka soo xirxiray oo wax duuli kara ma jiro wax hadli kara ma jiro waa shib qardam dalka gudihiisina uu kala xirxiray nimanka Jubbaland hadaan ka soo bilaabo dabaka inta kala xirxiray qolada gedo waxa lagu farxiray Muqdisho ayagii dadka ood iyo maartay dal iyo dadba wadaagaya waa laga gooyay diyaaradaha Kenya maalin walba duqeeya cid ka hadasha male dad iyo dunya kuma harin ayuuna waxa isla malaha madaxweynaha xaqiina xaafada ka soo jeeday ha ku shidina qoladan xigto kasbaay joogta hadaba dal gobolka Jubbaland wax laga hayo ma jirto meer yaro laba xire geel aan ka badnayn oo baar caleen iyo bulaable ka u dhaxaysa ay raabtay galeeyay gaarogeyno warleega sabaa isgaale wargaleexda way yaro laba xire geel waxa ku qolo meesha roo baartay qolada saaxiibada araareeti nin la yiraahdo lafta inta saa loo jijibiyay sida ayixii oo madax laga gooyo baalaha laga rifo lugu laga jaray yaani lafta kare la yiraahdo halka gooska loo galiyo saaxiibkay baan ku yiri walafti gareen maxay tahay mid saaxiibkay oo madow keerow la yiraahdo oo gorada u farmaajo keenay waa wax nagu cusub halkaas ayaguna way talaayay ma fadano uday ka haya waxa ku xigo qolo la yiraahdo Hirshabelle waa hiir iyo Shabeelle waa laba magac oo marka hore foodi la isu geliyay ayaguna halkaas joogaan waa laba awro isku ma xiriirsamaan maamul kama jiro waa iska magac waxa la wax dadkaas loogu filan yahay oo maamul oo dhisid oo loo hay 3 sano wax loo qabtay ma jirto waa ayaguna danahooda kuma tashadaan dawlad bay sugayaan dawladuna ma soo socoto waxa ku xigta qoladan ayagu marka hore dastuurku u jaban yahay gobolka barka galmudug ee isaga daba wareeganaya kii dhaca hooyadii waa dheer kii dhaca hooyadii waa dheer ya halkaas dadkii dan iyo dalba ku seegeen meeshaas ay ku guntan yihiin waxay kala garan laayihiin dantoodii ay wax ku dhisan lahaayeen iyo sida nimankan isaga dhicin lahaayeen waa iskaga qaldamay qolada ku xigdoonaa ninta saaxiibaday 3 meelood hadda loo sii kala jibiyay qolada reer bari xagga ay u carareen nimankan xagga ay wuxuu carareen maartay iyo ninkii dhooba daareedaha qoladii kale halkeedii way fadhidaa waa lagu dhex jiraa nabad iyo nolol baa dhex kacday ku kala carareen warsan gali caray uga tageen cidif nugaaleeday afis meel idishiishi cali saleebaan caluuliya si waqrona waa cabashadeedii waa ninkii hore la gabaygiisa dib xasuusay waa tabtaas dhibanka ku xiga maartay reer buuhoodle iyo reer laascaanood dhibanka hada waxa iska noqotay cul ku dhacayo tuuga ku ciidamis rag ahaan jireen oo daraawiishii bariyahan damay nagardaaq iska noqdeeno hadda meesha ka qiiqdo ay ma u qada doontaan qolada ku xigta qoladaas haday cirka uma fiiriyaan inay daruur saaran tahay mooyee
waxay yidhahdaa cirka buluuga fiiriso wasaaradda caafimaadka Somaliland baa tiri qofkii cirka eegay indhaha shucaaca baa kaga furmahaya marka inuu cirku daruuro leeyahay mooyeenaan eegin qolada ku xigta oo reawdal qoladaas waa qolada inta dhean dagaal baan qaadaynaa nabadoonkoodii warkii 3 askari kaliya ku daray ayagana beeshaas la jiiftaa waxaas oo ummad oo kala gunguntan oo qolo meel fadhido oo midba mid hoosta maaragtay ka qanisan yahay ibakaan baa la rabay inay isku habeeyaan ay dawlad ka soo dhisaan magaaladii Muqdishona hadii yaa wax laga weydiin dhagaxyaa ku gudbana dhagaxyahaanu ka wareysan doonaa waxa mar kale ku soo qaadan doonaa hadii baydmo barnaamijka kaftanka kulul iyo kawaysla jirka masraxiyadiisa xamar iyo xaaladeeda iyo xisbiyada ka jira iyo dhagaxyada loo dhiibay dalka amaankiisa aad baan idin salaamay waa Bisle Maxamed Sheekh iyo barnaamijkii kaftankii mar kale qofkii u baahdo wuxuu kala socon karaa iyagoo dhameystiran YouTube channel-ka aan leenahay ee Hormuudka Bulshada aad baa mahadsantihiin